madaxweynaha muddaxileedkiisu dhamaaday ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo xilligii uu musharaxa madaxweyne ahaa iyo kadibba waxa uu sameeyay ballanqaadyo adag kuwa ugu muhiimsanna waxa ka mid ahaa la dagaalanka musuqmaasuqa taas oo ahayd sababtii ugu weyneed ee uu ku guuleystay walaalayaalow mudanayaal marwooyin haddaad i doorataan musuqmaasuqu waa targetkayga ugu horeeya way waa la dagaalameynaa si foorxunna waa la dagaalameynaa qofkii hantida qaranka ku takrifala dad ummadana waa ku ceebeenaynaa xabsi dheerna u direynaa laakiin 4 sano kadib iyo hadda uu waqtigiisu u idlaaday waxa xaqiiq noqotay in ballanqaadkaasi fulintiisa uu ku dhacay iyadoo canshuur bixiyaasha Soomaaliyeed iyo deeq bixiyaasha caalamka ay ka sugayaan xisaab celinta lacag lagu aaminay iyo mid aan lagu ogeynba kuwaas oo aan lahayn Farmaajo ayaa sheegay inuu beegsanayo musuqmaasuqa khudbadii musharax madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo 2017 ka horjeediyay labada gole ee baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ayuu ku sheegay Farmaajo in uu beegsanayo musuqmaasuqa inkastoo hadalkaasi laga qoray haddana waxa uu ku dhacay imtixaankii ugu horeeyay uguna muhiimsanaa ee isla xisaabtanka iyo ka hortagga musuqmaasuqa isaga oo miisaaniyadihii baarlamaanka u ansixiyay aan soo celin wax xisaab xir ah isla markaana biyaha webiga raaciyay dhammaan xeerarka arrintaasi la xiriiray ee dalka u yiilay oo ay ugu horeeyaan xiroosadyada baarlamaanka iyo sharciga maamulka maaliyadda qaranka sida uu qabo qodobka 7aad ee xeer hoosaadka golaha shacabka farqadiisa koobaad xisaab xirka sanadkii tagay waa in la ansixiyaa ugu dambeyn 31 Maajo ee sanadka xiga sidoo kale tan sharciga maamulka maaliyadda qaranka waxa ku xusan in warbixin xisaab xirka sanadeedka miisaaniyadda federaalka ee sanadkii la soo dhaafay in la horgeeyo golaha shacabka si ay uga doodaan una ansixiyaan ugu dambeyn 30 Juun ee sanadka xiga 4 sano ee Farmaajo uu joogay dalkana uu maamulayay waxa laga hayaa xisaab xirka 1 sano oo ah 2017 dadka Soomaaliyeedna ma oga halka xukuumaddiisu ay ku qarash garaysay in ka badan 1 bilyan oo dollar oo ansixiyay baarlamaanka federaalka ah 3 sano ee la soo dhaafay miisaaniyadda 2018 waxay ahayd 275 milyan halka baarlamaanka federaalka ah uu ansixiyay miisaaniyadda 2019 oo gaaraysa 344 milyan oo dollar iyadoo sanadkii xigay ee 2020 xukuumadda Farmaajo loo ansixiyay miisaaniyad dhan 459.5 milyan oo dollarka Mareykanka ah intaba lama hayo xisaab xirkooda isku dhaca Farmaajo iyo guddiga golaha shacabka ee maaliyadda iyo miisaaniyadda xukuumadda Farmaajo sida aan soo sheegnay waxay golaha shacabka hor keentay xisaab xirka hal miisaaniyad sanadeed oo ah 2017 waxayna miisaaniyaddaasi madiga ah aqalka hor keentay Oktoobar sanadii 2018 isku turtuur iyo buuq kadib waxa la ansixiyay November 2019 taasi oo muujinaysa dib u dhac 3 sano ah xitaa halkaas xisaab xir waxa warbixinta guddiga baarlamaanka uu ka hor aqriyay ku jirtay in lagu helay musuqmaasuq iyo wax dabamarin Farmaajo arrintaasi ka falcelinaya waxa dhacday in guddiga maaliyadda miisaaniyadda iyo qorsheynta golaha shacabka ee baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya la kala diro eedaynta kaliya ah ee lagu helay guddigaasi ayaana waxay xilligaasi ahayd in guddiga ay xukuumaddu ka shaqayn laadahay xildhibaan Mahad Salaad ayaa maalintaasi la ansixiyay halkaasi xisaab xir 2017 qoray 33 milyan iyo 700 oo dollar oo si sharci darro ah xukuumaddu u isticmaashay ayaa maanta lagu ansixiyay xisaab xirkii 2017 lacagtaasi waxay ka kala timid wadamada Sacuudiga, Turkiga, Imaaraadka iyadoo Sacuudiga Soomaaliya xilligaasi uu ugu deeqay lacag 30 milyan ah halka Turkiga 2 milyan uu siiyay iyadoo Imaaraadku ay bixiyeen lacag gaaraysa 1.7 milyan lacagtaasi kuma jirin miisaaniyadda baarlamaanka uu ansixiyay 2017 xukuumadduna soo ma sheegin in lacagtaasi soo gashay markii lagu arkay xisaab xirkii ay soo gudbiyeen 2017 waxayna sheegi waayeen sababta iyo sida loo isticmaalay Farmaajo inta uu xukunka joogay waxa la furtay akoonno aan la aqoonin Sheekh Cabdi Xirsi oo ku nool Canada ayaa waxa uu bilihii la soo dhaafay waday ololo lacag loogu aruurinayo dawladda isaga oo madal u qabtay wasiirro ka mid ah xukuumadda halkaasi kuma ekaan waxa uu soo bandhigay akoon lacag loogu shubo
kaasi oo aan la xaqiijin cidda maamusha iyo xisaab celintiisa. Juun 9 2021 wasiirka maaliyadda Cabdiraxmaan Ducaale Beyle ayaa ummadda Soomaaliyeed ka dalbaday caawin ay dalka ku dhistaan, isaga oo qoray bulshada Soomaaliyeed waxa ay ummadaha caalamka uga wanaagsan yihiin iscaawinta iyo garabisiinta. Tilmaamaha gaarka ah ee aan leenahay waxa uga run sheegi karnaa marka aan innaga oo isku duuban dalkeena si wadajir ah u dhisano una horumarino. Muwaadinku waa kan u taagan had iyo jeer ka qayb qaadashada horumar iyo dib u dhiska dalkiisa. Wasiirku ma sheegin waxa la dhisayo, guddi arrintaasi loo xil saaray oo lagu kalsoonaan karo ama xisaab celinta sida ay noqonayso. Akoonadan ayaana waxa laga furay bangiyo ay ka mid yihiin Amal, Salaama iyo Dahabshiil. Magacaabista guddiga la dagaalanka musuqmaasuqa 16 November 2020 iyadoo ay tahay xilli kala guur ah dalkana uu doorasho aaday. Golaha shacabka waxa uu si aqlabiyad leh ku ansixiyay magacaabista 9 xubnood ee guddiga madaxa bannaan ee la dagaalanka musuqmaasuqa iyo guddiga adeega garsoorka. 30 December 2020 madaxweynaha ayaa saxiixay wareegto lagu magacaabay dhismaha xubnaha guddiga madaxa bannaan ee la dagaalanka musuqmaasuqa. Sida ku qoran xeerka lagu dhisay guddigan qodobkiisa 10aad waa in la horgeeyo baarlamaanka federaalka labadiisa aqal, laakiin waxa ansixiyay oo kaliya golaha shacabka, halka aqalka sare oo loo gudbiyay 22 November iyaga oo uu yaalo waxa ay ka war heleen in farmaajo uu saxiixay dhismaha hantidhowrka qaranka. Oktoobar 31 2020 golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka ayaa ansixiyay sharci lagu dhisayo hay'adda hantidhowrka qaranka ee madaxa bannaan. Si la mid ah golaha aqalka sare ayaa cod aqlabiyad leh ku meel mariyay sharciga hantidhowrka qaranka Febraayo 9 2020. Hantidhowrka qaranka oo ah hay'ad madaxa bannaan oo hubisa hufnaanta maamulka maaliyadda dalka waxa ay u xayiran tahay in ay qabato shaqo madax bannaan. Saxiixidda sharciga hantidhowrka qaranka oo madaxweynaha waqtigiisu dhamaaday farmaajo ag yaala 8 bilood. Saxiixidda sharciga hantidhowrka qaranka waxa hortaagan cabsi ay ka qabaan maamulka sare ee dowladda inuu xafiiska hantidhowrka si madax bannaan u shaqeysto. Musuqa iyo liiska dunida Soomaaliya ay ka gashay intii farmaajo uu joogay. Maamulka farmaajo waxa sidoo kale uu ku guul dareystay in Soomaaliya uu ka soo saaro liiska dalalka ugu musuqmaasuqa badan caalamka oo 13 sano la soo dhaafay ay ku jirtay, sida ay xaqiijisay warbixinta Transparency International. Warbixintan waxa kale oo ku jirtay baaq ah in doorashada ka hor la dhiso hay'ado wax ka qabta musuqa, tiyo iyadana lagu guul dareystay. Dhanka kale, Mareykanka oo ah kuwa Soomaaliya taageero dhaqaale siiya ciidamadooda ayaa sheegtay farmaajo. Rodney Hunter oo ah isuduwaha arrimaha siyaasadda u qaabilsan dowladda Mareykanka ayaa golaha ammaanka sanadkii tagay waxa uu ka hor yiri ciidamada militariga Soomaaliya ee sida siyaasadaysan loogu daadgureeyay gobolka looguna dagaal geliyay gobolka Gado ma ahan mid la aqbali karo, waxayna taasi weecinaysaa dhaqaalihii lagu heshiiyay ee loogu talagalay howlgallada amniga.